qodobka 22aad muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu xaq u siinayaa in xisbi uu samaysan karo uu ku biiri karo loo dooran karo ama la dooran karo waxna dooran karo maadaama laga hadlayo xuquuq iyo waajibaad laga hadlayo sharcigan axsaabta siyaasadeed ama sharciga xisbiyada siyaasadda waa in la waafajiyo dastuurka ku-meel gaarka ah iyo shuruucda kale ee waddanka u taalla iyo sharciga doorashooyinka maadaama laga hadlayo xuquuq iyo waajibaad xuquuq siyaasadeed muwaadinka Soomaaliyeed uu leeyahay ay tahay in la waafajiyo waayo waxaan aad u fahmi karnaa aan dareemi karnaa xisbigu ama axsaab siyaasadeed oo waddanka uu yeesho waa midda loogu gudbi lahaa dowladnimo ku dhisan qabiil axsaab siyaasadeed oo waddanka yeesha waa kuwa soo diyaarin lahaa kaadiriin siyaasadeed iyo kuwa maamul oo waddankan u adeega gaarsiiya horumar iyo nabad axsaabta siyaasadeed waa kuwa soo diyaarin lahaa jiilal hogaamiya waddankan mas-uuliyadda axsaabta siyaasadeed ay leeyihiin xildhibaanada sharafta leh caalamka waa la socotaan maanta heerka uu marayo xisbiyadu waxay ku tartamaan adeega ay u qabanayaan shacabka markaasi ayaga shaqada u dhiibtay oo loogu talagalay inay u adeegaan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu diyaar u yahay in qeyb la yaqaano uu ka qaato sidii waddankan uu u yeelan lahaa axsaab siyaasadeed oo u tartanta qabashada hoggaanka waddanka waxaa kaloo ogaataan jiilal fara badan oo waddankan wax u soo bartay aqoonyahano fara badan oo awooda inay waddankan mugdiga ka saaraan oo ay u gudbiyaan meel iftiina hadday noqon lahayd dhinaca siyaasadda hadday noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha hadday noqon lahayd dhinaca amniga dhinac walba oo maanta baahidiisa ay nahayso waxaa lugtahaya waa qabiil sababtoo kriteeriyada qofka siyaasiga lagu soo xulo haddii qabiil ay noqoto aqoon-yahankii wuxuu noqonayaa mid aan meesha waxba ku lahayn sababtuna waxay tahay ninka awoodda u yeesha ama awoodda u yeeshay inuu soo xulo siyaasiyiinta hadba waxay ku xiran tahay miisaanka uu saaran yahay maanta haddii aan tusaale u soo qaadanno nin macallin ah oo dugsi sare wax ka dhiga wuu og yahay kan jaamacadda dhiga darajada uu wato wuu og yahay maadada uu dhigo haddii la weydiiyo maado kale wuxuu ku leeyahay physics haddaa rabtid cabdiraxmaan nin la yidhaahdo jaamacad hiblaayo wax ka dhiga waa ninka ugu sarreeya oo maanta hadda la weydiin karo maadadaas